laascanood jamaahiirta SSC ayaa mar kale ka hortagay duulaankii ugu weyn oo ciidanka Somaliland ay ku doonayeen inay gacanta ku dhigaan magaalada laascanood ee xarunta gobolka Sool kadib markii weerar dhowr jaha ay ku soo qaadeen. dagaalkan waxa uu ahaa mid kamid ah kuwa ugu qaraaraa iyadoo weerar gaadma ah dhowr jaha ay kaga soo ekeeyeen ciidanka Somaliland. fariisimaha jamaahiirta SSC jilbaha ayaa la isku dhigay, ugu dambeynna waxaa la jabiyay ciidamadii duulaanka soo qaaday ee Somaliland sida laga soo xogtay qayb kamid ah saraakiisha ciidamada SSC ee ku sugan gobolka. dhinaca kale waxaa jamaahiirta u suura gashay inay gacanta ku dhigaan hub iyo gaadiid tirabeela sida caadada ah, isla markaana maxaabiis nolosha ay ku qabtaan. waxaan idiin soo gudbinayaa daawadayaal xogii ugu dambeeyay ka imaanaya deegaanada gobolka Sool. dagaalkii halka ka dhacay iyo warar dheeraad ah ayaan idiin hayaa ka hor intaana gudgelin daawada ku soo birbogeen RNTV muuqaalka nashar gare oo asxaabtaada la wadaag. aan ku bilaabay wararka naga soo gaaraya laascanood xarunta gobolka Sool waxay ku waramayaan in mar kale ciidanka Somaliland ay isku dayeen inay duulaan kula wareegaan magaalada madaxda gobolkan, iyadoo jamaahiirta SSC ay u babacdhigeen. dagaalkana waxa waa mid dhowr jaho iyo fariisimo kala duwan ay ku soo qaadeen ciidamada Somaliland. ilaa 3 fariisin ayaa la sheegay inay weerarka ku soo ekeeyeen, kuwa oo dhammaantood lagu jabiyay. isla markaana qorshaha kale ee ciidamada SSC ay adeegsadeen ayaa ahayd inay madaafiic ku garaaceen fariisimihii ay ka soo duulaan tageen ciidanka Somaliland ee doonayay inay la wareegaan gacan ku haynta laascanood. dagaalkana uu qaatay ku dhawaad 1 saac ayay ciidamada ku soo afjareen kuwa weerarka soo qaaday sida la soo wariyay. horey ayuu Korneyl Muuse Biixi Cabdi hogaamiyaha Somaliland wacd u maray in maalmaha ciida ay doonayaan inay wacdar ka dhigaan furimaha dagaalka, balse arrinta ayaa beenowday kadib markii iyaga lagu jabiyay. jamaahiirtu waxay soo bandhigeen hub iyo gaadiid tirabeela ah oo ay kala wareegeen ciidamada Somaliland, kuwa oo qaarkood yihiin hub cusub oo dhawaan lagu soo bandhigay duleedka waqooyi ee magaalada Hargeysa, halka oo tababar ciidamo lagu soo xiriyay. kani waxa uu muujinayaa sida ciidanka Somaliland ay u taageerayeen yihiin, isla markaana mar kale looga furtay agabkii dhawaan loo soo dhiibay ee ku jiray hubka cusub ee ciidamada tababarka loo soo xiray. dagaalku mid qaraar ayuu ahaa, waxaana shir degdeg ah soo yeeshay ka hor dagaalka saraakiisha dhammaan ciidanka Somaliland oo ku soo ballamay in markaan ay soo celiyaan magaalada laascanood, isla markaana gacantooda ay ku soo laabato. arrinta oo guud ahaan ay beeniyeen jamaahiirta SSC kadib markii ay u babacdhigeen galbeedka, bariga iyo waqooyiga ayaa la sheegay in si isku mid ah hal mar ay duulaanka ugu soo qaadeen ciidanka Somaliland fariisimaha ciidamada SSC, balse sirdoonka ciidanka jamaahiirta ayaa ka warhelay xogtan ka hor intaan ay duulaanku soo gaarin, iyaga oo u babacdhigay durbadiiba. dagaalka oo dhowr saacadood ku dhawaad soconayay ayay ugu dambeyn ku jabiyeen, isla markaana naafo xoogan ku gaarsiiyeen sida laga dheehan karay muuqaallo ay soo gudbiyeen saraakiisha SSC. walow halkan barta Facebook aanan idinkula wadaagi karin, waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka Somaliland si gaar ah kuwa ka soo jeeda dhul bahante oo ka barbar dagaalamaya beesha Isaaq oo gacanta lagu dhigay, isla markaana la sheegay in saacadaha soo aadan loo gudbinayo garaadada iyo dhaqanka beelaha dhul bahante si go'aan buuxa ay u gaaraan. qayb ka mid ah saraakiisha ciidamada xaquudirka hogaaminaya waxay sheegeen in arrintan ay ka warhayeen tan iyo maalmihii ugu dambeysay iyo qorshaha duulaankan, taana ay u sahashay inay ka hortagaan weerarka waliba si dhaqso ah, isla markaana ay fashiliyaan. sidoo kale waxay intaa ku dareen in iyaga qudhooda ay u diyaarsan yihiin duulaan inay qaadaan oo ay soo afjaraan guud ahaanba Somaliland iyo ciidankooda ku sugan duleedka laascanood. waxaa intaa barbar soconaya baaqyada ka imaanaya beesha caalamka ee ku aadan in ciidanka Somaliland laga saaro duleedka laascanood, walow Korneyl Biixi arrinta uu ka madax adeegay. wixii ka soo kordhay xaaladda gobolka Sool bogga RNTV ka dheego daawada tan iyo kulantada nabadgelyo naguna sabiir.